magaalada Hargeysa habeenkii xalay ahaa waxa lagu qabtay xaflad abaalmarina waxaana xafladaasi lagu abaalmariyay kooxihii ku guuleystay koobkii FC Gadar ay ka waday Guryasamo waxaana ka soo qayb galay Cabdikariin Axmed Mooge mas'uuliyiin ka socda xisbiyada u cudiyay wadani iyo sidoo kale maamulaha guud ee shirkadda True Cable taliyaha degmada Maxamed Mooge waxaana halkaas hadal ka jeediyay martidii ka soo qayb gashay xafladda abaalmarinta Stars ama escape room oo iyadana halkan uga aqbalinayo sidoo kale waxaan halkan uga aqbalinayaa kooxda SVU oo rahatiyaduna horta labada kooxood baadan yar idinka faawado waxay ahaayeen markii koobaad ee taariikhda Guryasamo Stadium ay cagta soo galiyeen sidoo kale waxay ku darsadeen waxay labada kooxood wateen waxa loo yaqaan MPT-ga muujirin inta ciyaaruhu soo socdeen mid dhinaciisa dhulka la dhigay labada kooxood waxay soo mareen marxalado aad u adag sidoo kale waxay ka soo gudbeen heerar cajaa'ib iyagoo waliba la ciyaaray ama ka soo adkaaday kooxihii markaas la filayay inay koobka ku guuleystaan waxaana dhacday in markii koowaad ee taariikhda garoonka Guryasamo laba kooxood oo awal marra fi taariikh Guryasamo koob ka soo gala adana ku kulma final waliba si raacsaday MPT aad labada kooxood markaasi koobkaasi iskugu yimi sidoo kale koobkaasi heerka labaad ee isna Guryasamo ka waxa iskugu yimi kooxaha FC Gadar iyo sidoo kale kooxda FC Oqaan halkana caawa wariyo kaftana koornaya كل كوحدة قدر وكوحدة قاعد كويس تقولون Guryasamo Stadium مليون إسكا كفتنا ترتا وطوح كستابة حاجة سريك قري وحنا نقول خير كبار بارنا وحبك ما قبل كرينو هدينا عبك وحبك قبل كريم واحد يقول يا لنا وحبك ما قبل كرينا كذا قتاي وحنسيدو كلمة قبله بينها أما ملكا يكوحدة قدر قعنتو كويس garoonka Guryasamo sida wanaagsan ay u maamuleen halkaasi bilxaqiiqatan hadii cid ay wax sheeganayso oo wanaag ay ku faani karayso wixii Khalid halkan ka yiri macna badan bay sameynayaan waxaan hadaladii quruxda badnaa ee Khalid halkan uu ka yiri ay ku fiican yihiin inay galaan dhago furan qalbiga furan iyo madax wanaagsan oo maqasho hadaladii faraha badnaa oo halkan ka yiri inta uu ka xishooday inuu madaxdiisa qaliilo isagoo inuu ilaa afkiisu kuma wanaagsana anigaas oranay dhalinyarada isu keentay 40 kooxood 800 oo ciyaartoy koobu dhigtay nabadgelyo ku bilowday nabadgelyo ku dhamaysay guul ka weyn iyo qurux ka weyn oo madaxda Soomaaliland ay u iman karto ku faani karto ku farxi karto ma jirto inay ka maqnaadaan ma caaw kaliya maaha garoonka way joogaan way waan ku hambalyeeyaa waan ku taageerayaa markasta waa dhimaadaa waan daawadaa yarkayga soo kaxeeya waxaan jecelahay bartaaga ka sii wadaa waayo qofka bini'aadamkii hadduu yidhaahdo maxaa aligu qaban waaye maxaa alaysi waaye ma socoto qofku hadduu isagu qabsado ismuujiyo dadka kale way caawin karaan laakiin haddii qof waxba aan isagu qabsan oon ismuujin cidna ma caawin karto laba tartan oo tartan walba uu ka koobnaa midna 24 kooxood midna 16 kooxood marka arrintaas waxay mudan yihiin in lagu horumariyo marka dhalinyarada ah waxaana loo dadaalka halka ka sii wada daashtana waxa weeyaan waa baritaan badan marka waxa weeyaan ciyaaruhu laba ay ugu qaybsanaan doonaan insha Allah bilaa kariim runtiina aad baan ugu hambalyeeyaa kooxda Sky Blue oo ku guuleysatay koobka صراحة كلاس عرب كيمادا هي إنك هرجيس محمود هيك كل شيء هي إنك رشة سريعة أي كسبه هنا سيس من قوتين كلام ساس ترابط يعرفها والروبا هنا هي
muhiimna maaha inuu wasaaradda ay qabato ama ay xiriirku qabtaan waa meel kasta dunidana way ka jira in ciyaaraha dadka deegaan inay ciyaaro qabsan karaan ciyaaraha nationalka ee xidhiidhada iyo wasaaradu qabanayaan way ka duwan tahay marka mar kasta waynu u baahan nahay bulsho kasta oo meel degan oo xaafadeeda gobol ku yaalaan inay iyagu ismaamulaan oo ay ciyaaraha dhexdooda qabsadaan marka waa arrin xil innaga ina saaran bulshaha oo intii meel wada degaba ee abaabulaan ee garoonku ka abaabuli karaan ciyaaro sidoo kale khaalid waxaan ku hambalyanayaa arrinta ah in markii u horreysay 24 kooxood uu garoonka Guriyosamo martigeliyo 2 kooxood oo ka socda degmada Maxamed Hede 22 kale ee kooxood ee tartanka hadda dhammaanay heerka saddexaad inay ka socdeen degmooyinka kale caasimadda arrintaasina waa arrin farxada waxaan nahay uliyadeer kubaddu waxay ilaalisaa wada dhalashada walaaltinimada iyo isku duubnida waxaynu aragnay dhammaanteen ciyaaraha adduunka in Barcelona uu ciyaaro Messi oo u dhashay Argentina halkaana aanay ka jirin wax la yiraahdo kala maxayday sooc ee kubaddu mar walba waxay ilaalisaa wadajirka iyo isku duubnida joogayna isma nacayno qabiil isma nacayno hawlgal isma nacayno laakiin waxa caqdadeena gelinaya waxay tahay yaan isku nicin nafsadeena koob yar oo xun oo loo dhigayo gaanta la kala qaaday ama biri la kala qaaday laakiin markaas oo isku taagaynaa waxba naga baahan tahay waxba kaaga baahan ma kala dhaqan doono insha Allah taala kala rabo in chance kaga faa'iideysto tahay waqtiga qadar aad baan iyaga ugu mahadnaqayaa insha Allah taala gabagabadina halkaasi waxay kooxda FC Gadar ay ku abaalmarisay tartamayaashii ku guuleystay koobkii ka socday Guriyosamo Cabdiraxmaan Erdogan telefishinka Nabad TV Hargeysa